qofku haddaan mas'uul ahayn quraanka haddii la akhriyo wuxuu gaarayaa inuu xayawaanka ka liito marka waxaan bini aadam ku nahay ko waa caqliga maaha sida wax maskaxdan maaha qalfoofkan maaha waa fikirka weeyaan labaad waa mas'uuliyad qofku haddaan mas'uuliyadiisa noloshiisa xayawaanka iyo dhirtu caqli somehow waxbaa ku jira dhir ma taqaanaa biology qolada waa ku jirtaa gelinka dambana qoraxda raaca gelinka horena qoraxda raaca yaa leexleexiya xayawaanka waxbay cunaan xooluhu waxbay raadsadaan marka nooc ayaan saddexaad u yahayba marka waxaan leeyahay qofkii aan noloshiisa diyaar inuu boqolkiiba boqol qaato waxa inta ka dambeeya waxa tarmayso haska baxo waxa tarmayso waqtigaas kala min ma fahanteen boqolkiiba boqol qofkaan diyaar u ahayn noloshiisa qaato wixii inta ka dambeeya waxa tarmayaan way bilowgu weeyaan marka inaad sii joogto halkan waxa ku tarmayso waa sida faana samaha marka waxaan soo noqonayaa qoladii tiri aan dhalinyarada tiri aan gabdhihii yiri boqolkiiba boqol mas'uul ka nahay marka waxaan siinayaa shuruudaha conditions weeyaan waana ta shuruudihii haddaad aragto qof cudurdaar bixinaya boqolkiiba boqol noloshiisa mas'uul ka maaha waa 85 qoluu siiyey maxaa u soo daahday baska iga soo daahay basku maarta meel buu ku tuurayaa cudurdaar qof bixinaya agoon baanahay rajo baanahay weligaaba haw ilaa ma curyaan noqoti cudurdaar baan wuxuu doon ha noqdo qof bixinaya micnaheedu waxa weeyaan noloshada mas'uul ka beehi markii haddii nimankii iyo gabadhihii iyo dhalinyarada yidhi boqolkiiba boqol hadday cudurdaar dhahaan maxaad wuxuu qabsan weyday cudurdaar keenaan ama calaacal keenaan ama eedayn keenaan qofkaasi uma diyaar ahayn noloshiisa mas'uul ka noqdo dad kale eedaynaya dad kale qabsanaya dad kale maarto dushka saar wixii sidaa darteed Soomaalidu dhibaatadii saarnayd waalidku dhibaatadii saarnayd uu ku eedaynayaa iskuul buu ku eedaynayaa aabbihii culay iskuulkan maarto arto han baro isaga wax soo bari waayba jaacadu ku eedaynaya jaacadan maalin balcag baa bixiyay marka eedda qof kale saaraya waa mas'uul macnaha waalidkaasi waa qeyr mas'uul ardayga odhanaya waa soo shaqeeyay shahaada soo qaatay shahaada jaacada xitaa weydi qof cid kale eedaynaya mas'uul noo sii kama aha meeshan waxa weeyaan shaqa kama jirto dawlad ma jirto waxa rabta dheh adduunku dhaha gudoomo laakiin inta calaacal iyo eedayn iyo cudurro aawado waxa weeyaan mustaqbal ma lihid mustaqbal gaar maysid nolol ma lihid noloshada mas'uul kama tiid marka haddii aad calaacalayso ama cid eedaynayso ama cudurro ay leedahay wax inta ka dambe kuma fiicmaayaan noloshada mas'uul kama tiid bas la fahanay waxaan jeexaynaa wadadii mustaqbalkaaga wadadii aad wax ku noqon lahayd fahamkeedina ka maqan yahay niideena iska tag meesha waxba ka heli maysid ma fahanteen marka hadda ordaya insha Allah waqtiga ugu dhawaale la tabnaha marka waxaan waa inaan aqoontu waa inaan ku faham nolosha ku fahansiisaa oo muslim ah su'aalkan is weydiino adoo muslim ah oo jaacad ka soo baxay soo shaqalaata fahamkaas inuu ku dhaca halkaas ما دعي كرتم على هذا مسلم شهادنا كسب شهادنا وشعنا كسب بحينا شغلنا غان نقطه مركا فاهم كم حاجه خدم وانا سير دي ان شاء الله وتيلا بعد تسويان مركا لها وحبر الشد مارت معناها حويان وحلقنا حسب برتين education هذا الوقت لكن حلو باهي هي حكمه دي عقلي قرات وحنا الله هذا واحتريا ما هو برشدي الدكتور هذا جعد هذه ما لكن waa garaadka iyo aqliga aad ka soo qaatay jaacadii